halkan asiga dheer markawi waa mahadsantiin magacaygu waxaa la dhahaa Axmed Cabdi waxaan mas'uul u ahay iskuulada barafadka ah ee xaydheer ku yaalan ama faafi dhinaceeda oo idin waxaan u malaynayaa faafi hal burra ku yaala mooye inta badan waxay ku yaalaan xarada qaxootiga ku yaalaan haddana waxaa ahay wakiilaha iskuulka Al-Amin oo la secondary iyo primary waxaan u malaynayaa macallimiintii ugu horreeyay ayaa sheegay wixii aan sheegi lahaa wax dhimanna hadda ma laho muhiimadda waxbarashada leedahayna hadda qof kasta wuu iska dareemi karaa u malaynayaa waxaan u mahadcelinayaa maamulka iskuulka Amal oo ka soo bilaabeen meel dugsi ah haddana usoo bedeleen meel madrasa ah haddana waxaan u malaynayaa qaybkii ugu dambeeyay inay marayaan oo ah meel integrator inay u bedelaan oo ah iskuul iyo isku dhex jira madrasa labadaba waxaan u malaynayaa dadaal dheeraad ah oo maamulka ay sameeyeen bawaaye aad baana maamulka ugu mahadcelinayaa dadaalka dheer ay sameeyeen iyo waxtarka bulshada ay u leeyihiin iyo carruurta ay soo saarayaan midda labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta sidoo gabdhaha waxaan u malaynayaa suul kasta oo aad qabto gabdhaha in badan u badan waxaad ka dareemi kartaa markaa meesha mas-uuliyadda waalidka saaran in haweenka ay aad ugu fiican yihiin carruurta dabagalkooda ogaanshahooda iyo la socodkooda waxbarasho marka gabdhaha aad iyo aad baan inugu mahadcelinayaa saa u wadiin carruurta ay u daba taagantihiin waxbarashadoodana aad ula rabtiin waxaan rabaa integrated schools taariikhdooda inaan waxaan idinga sheego waxaad aragtiin integrated schools inay meesha kusoo badanayaan wax weyn ay soo kordhiyeen bulshada iskuulkan hadda aan dhex joognay Amal waxaa jira school in partnership ayin ama school kale oo ku dhex jiro school waxaa ku qoran mudda taariikhda integrated schools ee xagdheer laga sameeyey waxaa la sameeyey horta la asaasay 2008 waxaana laga bilaabay school Al-Bushra ayaa laga bilaabay 2008 iyo hal mar waxaa la wada furay Liban integrated school ku yaala Ifo waxaa ku xigay iskuulkii saddexaad wuxuu ahaa Al-Amin integrated academy oo 2009 la furay waxaa ku xigay iskuul Yahuda oo la furay 2010 marka Al-Huda wuxuu ka mid yahay iskuuladii waqtiga hore la furay ee wax fara badan bulshada soo saaray wax fara badan bulshada ka qabtay marka Huda iyo iskuulka Amal waxaa u malaynayaa inay xiriir weyn ka dhaxeeyo milkiilayaasha Huda ay yihiin milkiilayaasha Amal taasna waxaa guul aad iyo aad u dheer ee bulshadana u wadaan waalidiinta halkan uga badinaynin waxaan rabaa inaan la hadlo wax yar oo idin sheego waxaa idin sheega waxaa waaye wax kasta oo guula oo la gaaro dhib fara badan baa loo maraa waqti fara badan waa loo dhumiyaa waxaan rabaa dhaxalka ugu wanaagsan ee cunugaada ay siin karto inuu noqdo waxbarasho haddii cunugaada aad wax barto waxyaalaha waxa waaye qofna uu ka dhici karin si qaldan uusan u isticmaali karin laakiin haddii cunugaada lacag fara badan aad uga dhimato waxaa laga yaabaa inuu si qaldan intuu u isticmaalo meel xun bay ay ka rido laakiin waxbarashada waxyaalaha guiding qofka ay hagaayo maskaxdiisa iyo suu xisaabta meelaha iyo hataa hantida aad uga dhimatay sidii uu meel fiican u dhigi lahaa waxyaalaha guide-gareynaya waxbarashada marka waxaan idiin sheegay dhaxalka ugu wanaagsan ee cunugaada asis intaad nooshahay ha noqdo ama kaa dhaxla ha noqdo inaad wax bartid oo iskuul aad geysid oo uu la tartamo dadka ficiisa midda kale oo aan rabay inaan sheego waxaa waaye waalidiinta halka noo joogo ama Soomaalida ah xoogaa waxaa ugu badan dhinaca waxbarasho la'aanta waxyaalo fara badan waxaa jira iskuulada aan ka ogeyn iyo qaabkay u socdaan marka waxaan jeclaan lahaa waalidiinta inay ku soo xirmaan iskuulada ay carruurta u dhigtaan si u ogaadaan waxyaalo fara badan oo ka jiro waxaa arkaysaa waa cunug lagu keenayo sanadka hal mar lagu keeni hal mar unbaad waalidkiisa arki dibda marka kuma soo laabanayo
wixii fariinta tacawuga aad u fartay waxaa laga yaabaa in waalidka sida wanaagsan ee aragtay in loogu sheego uusan u sheegin waalidka inkastoo waan ognahay inuu waxoogaa isaaqadu u raadiyay carruurtii oo iska mashquul u yahay qaarkoodan ayaba joogin oo tahriib ilaahay nagu aali iyo socod soomaalidayna oo aan soconno laakiin inta la joogto waxaan fiican suulada inaan ku xiranno waqti fara badan carruurta aan gelino macalinka naftiisa dhaliilo u yeelan karaaye aan u tagno oo aan u sheegno meelaha dhaliilaha ay ka jiraan si uu isku saxo laanaska iyaga waxaan maray waxbarasho ardayda iyaga hadal ma laho waxaan malaynayaa macallimiintooda ay joogaan dadaal dheeraad ah iyo maamulka waxaan u malaynayaa iskuulkii 12aad kaamka ka furan ayuu ka mid noqonayaa amal waxaana ka mid noqonaysaa iskuullada aan u imaanayna sanadka cusub bisha 2 aan u imaanayno marka waxaan rabaa maamulka inay wax badan bedelaan macallimiinta soo shaqaalaynayaan ay fiiriyaan iskuullada aan ka bilaabi doonana sanadkan markaan wareegayna wasaaradda waxbarashada ay noqon doonto amal ay ka mid noqon doonto marka maamulka waxaan u sheegayaa isbeddelkan aad samayseen mid kaloo ka duwan inaad samaysaan oo ah tayada waxbarasho soo saaridda carruurta iyo xanaanintooda waad mahadsantihiin halka waan ugu dheereeyey raalli ahaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته